Sida ugu fudud ee ugu trade gareyn kartid lacagta dahabka runtiina khibrad fiican u leeyahay oo long term ku trade gareynayo qaabka runtii dhinac kastoo lacagtana ka maray iyo waxa weeye waqti kasta ku bixiyo juhdiga qaabka ugu fudud ee lacagtana ugu trade gareyn kartid insha Allah muuqaalkan aan kugu tusin doonaa inagoo u sameyn doona insha Allah qaab ka duwan gabayaanba qaabka ay dadku u sameeyaan si boqolkiiba markaa xogtaan gudbinayno confirm noqoto hadda sida arkaysi daily-ga jooga barnaamijkan backtesting-ka lagu sameeyo wada garanaysaan waxaan arki doonaa date-ka markaynu fiirino bishan January insha Allah waxaan rabaa first week oo dhameystirano bishan January inaynu ku sameyno backtesting-ka maalin kamid meel fog ma aadayno marka first week oo dhameystirna wuxuu ahaa weegan oo shantii ka bilaabanay Monday arkaysi ilaa 9kii Monday marka beaker-kana imanayna isagana weydiinayna insha Allah inuu maalin kamid inoo dooro oo aynu markaas ku trade gareyno ma midaynu inagu dooranayno okay oo si hadhow inuu meesha uga saarno gabayaanba يعني waad ogeyd iyo wixii la midka aniguna of course aan cidna qancinayn laakiin si xogta sida marka hore ku sheegay u noqoto mid boqolkiiba confirm markaynu isla aragno maalinka uu inoo dooro insha Allah okay bisha 6deedii uu inoo dooro sida arkaysi marka hadda waxaanu imanaynaa chartiga haduu ilaa yiraahdo waqtigan aad baa boobsinay ma doonayo inuu muuqaalka dheeraado waxaanu imanaynaa January 6deedii waan jaranaynaa haduu ilaa raali ka noqdo January 6deedii waa tan soo 5 minutes insha Allah moosara ku trade gareeya 5 keenu iman doona insha Allah markaynu 5 minutes ka imaano sida arkaysid marka waynu iska soo boobsiinaynaa ilaa 6 January insha Allah inoo furmayo suuqa yani still waa 5 January way anigaan ugu talagalay si markayna uga hordhicin okay saarkaysaan hadda 6 January halkan uu ka furmo runtii waa open marka Asian session yani London session NY session any session oo ajani session sababka ugu trade gareyn kartaa waa faham Soomaa oo aad suuqa soo firiisatid muhiim waxa kaliya inuu suuqu structure leeyahay sidoo kale volume ay sadaasit waayahay marka hadaynu isla aragno suuqan structure ma haysta fiiri xitaa uma baahnin bias iyo inaan 1 hour 4 hour waxayna tagno uma baahnin strategy-gan ICA loo yaqaan oo midka moosal ku trade gareey waa muhiim inaan 1 hour ka 4 hour ka daily always waa muhiim inaan indhaha kusoo dhufatid iska fiirisid laakiin automatically iyaga xitaa direction-kooda low time frame ka laftirkiisa ka ogaan kartaa oo fiirinaya structure-ka iyo move-ka uu suuqa sameeysanay ma fahanti dhaqaaqa uu sameeysanay marka hadda halkan insha Allah suuqan waxaanu ka rabnaa inuu horta structure noo yeesho haduu ilaahay raali ka noqdo sal xooggan hadda soo dhacay sida arkaysid moosalna waa sidii bishan January hadda uu suuqu ku furmay marka uu furmo waa inuu aad volatile u yahay marka halkan fiiri hadda waxaanu ku haysanaa all these areas oo mataqaanaa zone soo inuu aragno marka suuqan insha Allah waxa uu sameeyo waya hadda soonka waa la taabtay markaysa iminka soonka waa la taabtay laakiin wali suuqan structure ma leh wali suuqan structure ma leh okay soon baa la taabtay kaliya insha Allah ma inuu ku trade gareynayno 5 minutes kan wali joognaa laakiin hadda maxay arkaysaa mar kale inuu suuqu inoo respect gareeyo soonkii oo inuu helnay candle mataqaanaa rejection fiican inoo sameeyay bullish inoogu xirmay soonka marka uu taabtay soo mise kaliya inuu ku qaadan karnaa buy no gabayaanba waa inaynu still sugnaa hadda candle-kan wuxuu sameeyaa confirmation ardayda waa garanayaan patterns-ka isticmaalno kamid yahay hadda buy sidan waa ku geli karaa oo inta halkan ka galo buy-gani waxaan geli karaa 1.5 maybe 2 RR ila 1.5 oo kale SL-ka ku xirnaan kulay SL-ka yani 45 pips then insha Allah 50 pips meelahaas inaas ka galabay noqonay ilaa gaabkan oo kale 67 pips waa iska 1.5 RR aan fiirina insha Allah iminka aan fiirina haduu ilaa raali ka noqdo inuu trade-kan uu baxo sida caadiga ah trade-ka yani haduu isiiyo half profit-ka waa break even marka trade-kan waa break even mujada يعني half profit-ka already ka badan uu siiyay marka break even moo soo saaray still suuqan structure male waxaan ku trade gareynayna waxaad waa un maaragtay range-kan soon buu suuqa yimaada saasan ku qaadanay laakiin structure-kan uu socdo wali ma hayo iminku iman karaya sa arkaysid dhaqaaqana haduu inaga soo hoos maro ayna ugu soo hoos xirmo xagani nice hadda suuqu structure sameeysanaya soo ma arkaysid impulsive correction impulsive okay aynu aragno marka nice halkan sidoo kale saynu arkayno waxaana lagu sameystay gaabkani so waa iska hubin doonaa xagga maxaa iga xiga xaggan maxaa iga xiga xaggan maxaa iga xiga it's very important halkanna waxaan ku haysaa sida arkaysid lowgan liquidity waxyaabo badan soon baa dhihi karaysaa waxa rabta adiga ku magacaabo demand soon bay noqon karaysaa yani support level baa ku magacaabi karaysaa istaraatiijiyada kala duwan qayb magac loo yaqaanaan marka anyway sidaan arkayno waxa weeye rejection xooggan baa laga soo sameeyay gaabkan aynu rabnaa inuu suuqu inoo yimaado salkaas aynu soo qaadanayna although aad arkaysid intii waxa weeye liquidity-gan la qaaday in si xoogan uu suuqu rejection usoo sameeyay haddana structure-ka guud suuqu waa nadiif waa sell marka gaabkan aynu insha Allah ka soo gali doonaa trade-ka haduu ilaa yiraahdo
all the way salkan wuxuu noqon doonaa fi no ma aadayno insha Allah haygan yarkaa baynu kor dhiganaynaa kanalka rejectionka waxa ma aadayno 45 pvska 1.5 RR sidii caadigeed ilaa kanalkan oo kale laga soo hoos marayo meelahaas ayaynu insha Allah qaadan doonaa markaynu isla aragno hadduu ilaahay raali ka noqdo waa la taabtay muujada automatically traderkana waa execute garana waa open you see saaxiibaya it's very simple runtii strategy-gan just waa the easiest way baa isla runtii oo lacagta daabka loogu trade garan karo waa kaliya inaad garanaysid meelaha zoneska suuqa rejectionska uu ka sameyn karo directionka guud ee suuqa xagee uu suuqa kusoo laaban karaa xagee loo wadaa inta inay fahansantahay around inaan trade saddexaad ku dari karayo waqtiga ay haya almost inta ma doonayba 6 minutes bay u sii maraya laakiin hadda fiiri waxaanu aragnaa marka la rejection xooggan baa dhacay bullish fiican structure marka ma haystaan still waa sugeynaa suuqan oo kale ma geli karaysa okay laba mid baa ku geli karaysaa suuqan waa in mar kale direction fiican oo sell aad hesho oo confirmation kala ama in lowgii ugu ama waxa kala jeeda highga ugu dambeeyay in mataqaanaa laga kormaro oo marka targetka uu noqon karo highga sare saasina ku geli kareynaa oo direction macnaha suuqa ku samaysan karaya laakiin iminka wax trade ma jiro okay nice hadda sidaan arkayno highga ugu dambeeya lagu kor xirmay okay so there is no way oo gudaha hadda aynu sugano gaabkan gudaha already waa fixed sida arkaysa so marka waxa ugu badan oo suuqan samayn kara waa in retracement lagu soo sameeyo highgan let's see aanu aragno haddii kale waa sii socod you see volume fiican baa suuqa ku jira okay gaabkan oo kale suuqa maybe kusoo laaban karaa waa possible ama intii highga la soo qaaday kadib waa lagu soo laaban karaa marka hadda still structure kale oo fiican buu sii samaysanaya inkastoo liquidity-gan hadda la qaaday waxay noqonaysaa suuqan inuu gaabkan soo buuxiyo marka bullback ahaan baa usoo qaadan karaysa hadda silkan wuu baxaya shaki la-aan silkan wuu soo baxaya ha ka shakinin saaxib muujada marka halkan hadda wuxuu ku samaysanayaa suuqu saa arkaysid level cusub buu samaysanayaa zone cusub buu suuqu samaysanaya saa aragtid aanu aragno in lagu soo laabto mar kale kadib baad buyga ka samayn karaysaa that's it hadda waa clear buygan hadda waa clear halkaasaa ka geli karaysaa and then 50 bibskaas no waa ku khasbanaya 61 bibska waa inaan tago kanalka lowgiisa then 1 RR ka dhigo 1 RR on insha Allah let's go aan aragno must be inuu si fiican u dhaqaaqo simple so wallahi alcadiim waxa kan aan hadda mataqaana xaggan ku sameynay inkastoo waqtigu ugu dheeraaday waa wax aanan hal xabo wallahi alcadiim aan ka ogeyn sida u baxayaan laakiin just iminka si live aan u sameynayo waxaan isleeyahay runtii waa sidabka ugu fudud ee uu qof ugu trade gareyn karo ma garanaysaa lacagta daabka hadda fiiri structure-kan waa ICI impulsive correction baynu helnay fiiri gaabkii ma aanan sugin hadda why sababtoo suuqu maxaa gaabkan waa u sugaya meena halkan ma arkaysi soon cusub uu suuqii abuuray then soonkaasaan kasii baagaraya this the end of the bullback ma garanaysaa still hadda dhaqaaqan wuu sii soconaya walaa shaka you see marka ardayduna runtii si fiican ba u garanaysaa insha Allah waxa isku dayay still sadabkan inaan marba marka dambaysan si hormariyo oo uu noqdo sadabka ugu fudud ee runtii loogu trade gareeyo lacagta daabka intaas ku eegaya muuqaalkayga nabadgelyo